waxaan rabaa inaan ka hadlo laba kaliya. Awalan, insaanku wuxuu ku wada noolaan karaa nabad. Dadka nabadda dhibaatada ku ah haddii wada jir aan la isaga qaban oo ay helaan galdaloolo meelaha ay ka soo galaan oo dad kaalmeeya ay helaan, weligood way sii bulaalayaan, amniguna gacantuu ka sii baxaya. waayo amnigu wuxuu u baahan yahay insaanka naftirkiisu inuu qaato oo dadka ay rumaysan yihiin amniga sida asagu ugu baahan yahay qofka walaalkiisa dariska la ahna inuu u baahan yahay. waxaana lagu qaban karaa in kow alla laga cabsado. allah baa quraankiisa wuxuu ku yiri alladina aamanu wa lam yalbisu iimaanahum bidulmin ulaa'ika lahumul amn. kuwa ilaaha rumeeyey oo iimaankooda aan ku dheehin dulmi kuwaasa amni iska leh. dulmiga haddaad ka qayb qaadato oo aad adigu garab u noqoto kii dulmiga sameeyey adigu isku mid baa tihiin. wax haba yaraata aad isdhaantaan lama arko. adiga markaasay tii waxaad qaadatay in aad tahay ninkii dan waxaa laga rabaa dan yar laga yaabaa dan yar inaad leedahay oo ama maamul aad diidan tahay ama maxaa la jiray ii sheeg waxyaabo kale oo aad danaynayso, laakiin dhibaatada aad geysanaysaa ka badan. waxaan soo jeedinaynaa awalan horta hore ciidanka booliiska haddaan dadku la shaqaynin waxba keligiis ma qaban karo. booliisku waa sharci fuliye, shaqadiisu waa ka hortagga dembiyada iyo ka dabatagga. intaan dembi dhicin in laga hortago, haddii uu dhacana in laga dabatago oo lasoo qabto dembiilihii oo sharciga la horgeeyo. taasna waxay ku suurageli kartaa markay shacabku la shaqaynayaan. haddaan shacabku la shaqaynayn ma hirgeli karto, booliisku keligiis wax ma qaban karo. dadka kan ciidamada ka soo goostay oo qoryahoodii iska wata iyo kuwa maleesiya beeleedka ah dhammaantood waa criminal, waa dembiilayaal. horta marka hore askari xoogga dalku ah hub baa la siiyey, dowladda tababartay, kharash baa la geliyey, ciidamadii buu ka soo fakaday, qorigiisii buu soo qaatay. horta asagii waa baxsad, waa dembiile. maxkamadda ciidamada haddii la qabto waa la xukumayaa. tan labaadoo kasii daran marka waxaa weeye seebuu ku noolaana waa inuu baarasay noqdaa, dadka dhiigooda uu ku noolaadaa. subaxdii insaanku wuxuu u kal lahaa inuu shaqaysto, laakiin qof baa wuxuu u kal lahayaa qof miskiina oo soo shaqo tagay jeebkiisa inuu baarto oo amnigiisa khatar uu geliyo. kaas haddaan ummaddu u wada dhammayn oo booliiska lala shaqaynin wax hirgelaya haba yaraatee lama arko amniga. way sii xumaanaysaa, xaaladdu farahay ka baxaysaa. sidaa darteed shacabkuna inay kaalmeeyaan booliiska ayaa loo baahan yahay. ciidanka booliiskuna uu waajibkiisa guto. haddii xataa qaar khatara ay ku jiraan oo la og yahay waaran bay galkay soo diyaareen dadka dhibanayaasha dacwooday oo saldhigga dhooban baa qoraal booliisku ka samaynayaan. maxkamaday soo weydiisanayaan waaran soo qabasho, amar soo qabashay soo weydiisanayaan. maxkamaddu waa siinaysaa iyo xeerdaalintu alla soo qabtay leeda. hadduu markaa hubaysan yahay oo booliiska la dagaalamo oo meesha lagu dilo waxaba yaraatee cid isweydiinaysa male. may fahamteen? calaa kulli xaal waxaan soo jeedinayaa insaanka daalimka ah ee dadka ku dhibaataynaya nolosha oo degmada kharibaya isku meel ha looga soo wada jeesto. booliiskana garab ha lagu siiyo iyo hay-adaha amniga in nabadgelyada laga shaqeeyo. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.